leeyahay Ramadaanul Kariim aniga waxaan ahay Cabdiraxmaan Buwal Maxamuud oo aad u taqaanaan Catoosh maanta waxaan doonayaa in aan halkaan ugu hambalyeeyo sanad guuradii 18aad ee warbaahinta iyo TV-ga Shabelle TV-ga Shabelle waa TV wax badan u soo qabtay dalkeena Soomaaliya dhibaatooyin aad u fara badan ayuu la soo kulmay waan kaga mahadcelinayaa sanad guurada 18aad ee TV-ga maadaama maanta ay tahay 6 May oo 2002 la aasaasay TV-ga waxa uu soo tabiyaa barnaamijyo aad u xiiso badan sida wararka arrimaha bulshada isboortiga iyo sheekooyin aad u xiiso badan sidoo kale waxaan aad u xiiseeyaa barnaamijka ay soo tabiso Faadumo Cabduqaadir oo ah saxufiyad aad u weyn oo soo tabiso barnaamijka arrimaha bulshada oo ay hadii ay noqoleen maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale barnaamijyo kale oo aad u xiiso badan sidoo kale waxaan aad u dhaliilayaa ciidanka dalka iyo sidoo kale cid walba oo dhibaateynayso wariyaasha madax banaan maadaama dhacdadii u dambeysay ay ahayd dhacdadii ku dhacday Safa Cabdulle Cusmaan oo ah wariye ka howlgala warbaahinta TV-ga iyo telefishinka Shabelle waxaan leeyahay mar walba wariyaashu waa indhaha bulshada waxa soo baxay waa wariyaasha dadka u doodila bulshada waa saxaafada waxaan jeclaan lahaa in aan saxaafada marnaba laga hor istaagin aragtidooda aad ayaan ugu faraxsanahay in aan maanta aan ka soo muuqdo TV-ga Shabelle maadaama ay tahay maalintii la aasaasay TV-ga Shabelle waxaan u hambalyeeynaa dhammaan shaqaalaha guud ee warbaahinta iyo TV-ga Shabelle iyo inta daabato waxaan leeyahay Ramadaanul Kariim Ramadaan Mubaarak